سلام الله عليكم saaxiibayaal kusoo dhawaada muuqaalkii lixaad ee qaybtii labaad ee muuqaaladeena taxanaha ahaa ee aan doonayay in adiga kugu fahamsiiyo sida aad uga shaqaysan lahayd suuqa sarifka lacagaha qalaad ee magaciisa loo yaqaan forex trading. dabcan waxaynu ku soo xusnay buuggeena marar badan aan muuqaaladan ku xusay in forex aysan ahayn ganacsi qof walba uu gali karo balse ay tahay xirfad uu kaliya ku shaqaysan karo qofka barta sida xirfadda gacanta looga qabto. ujeedka hayaan academy iyo muuqaaladana waxa weeye inaan ku baro sidii aad xirfadaas u baran lahayd maadaama qof walba uu xaq u leeyahay inuu barto xirfadan. dad badan waxay oran doonaan maxaa ka wadaa maaha ganacsi qof walba ku shaqaysan karo. iminka haddii aad dukaan furatid qof walba ayaa dukaan furan kara. bakhaar baad tegaysaa, alaabtii baad soo qaadanaysaa, qol baad furanaysaa, magac baad ku qoranaysaa, ganacsi baad saa ku haysataa. qudaarley baa noqon kartaa, qudaar baa waxa ka soo qaadanaysaa beeraleyda, dukaan baa dhigaysaa waa lagaa gadanaya. laakiin qof walba tagsiilo ma noqon karo. yaa tagsiilo noqon kara qofka yaqaana xirfadda baabuur wadista. farqiga u dhaxeeya marka forex iyo ganacsiyada kale waa sida farqiga labada fursad u dhaxeeya. sidaas la mid marka si aad xirfadda u baratid waxaan ku yiri sheekadan waxay ka dhacdaa internetka dhexdiisa. internetka marka la isticmaalayo waxa la isticmaalaa mobile ama computer. qaybtii hore ee muuqaaladan oo dhan waxaan ka soo sheekeynay computerka shaqada laga qabto. iminka waxaynu ka hadlaynaa mobilka shaqada laga qabto. muuqaalkan waxaynu ku falanqeynaynaa sida loo isticmaalo applicationka suuqa loo isticmaalo ee magaciisa la yiraahdo MetaTrader 4. dabcan waxaa jira dad yow kale oo suuqa u mara applicationo kale oo brokerada qaybtood ay leeyihiin balse MT4 waa midka ugu caansan. dhammaan inta badan ama 99% brokerada oo dhan waxay bixiyaan in MT4 lagu isticmaali karo brokerkooda. that's why MetaTrader 4 ay tahay midka ugu caansan, ugu weyn, uguna fiican ee suuqa lagu isticmaalo. muuqaalkan guud ahaan wuxuu ku saabsanaan doonaa wax walba oo MetaTrader 4 la xiriira. gaar ahaan wuxuu ku saabsanaan doonaa dhammaan waxyaalaha u khaaska ah demo sida looga furto iyo sida loo isticmaalo. waxaan kale isku dayaa inaan ku tuso trade-kii aynu soo falanqeynay ee aynu ka soo sheekeynay sidii aynu ficil ahaan ugu bedeli lahayn oo aynu halkan gacanta hawsha uga qaban lahayn. okay marka koowaad anigu waxaan isticmaalayaa ama muuqaalkan aan ku duubayaa telefoon ah Android ama mobilada nooca loo yaqaan Samsung iyo kuwa la midka ah oo iyagu waxay leeyihiin Play Store. hasaatee mobilada Apple-ka ah iyagu waxay isticmaalaan wax la yaqaano Apple Store. marka waxaan isticmaalayaa Play Store-ka ayaan tagayaa, kadibna waxaan raadinayaa meesha search-ga ayaan tagayaa, deetana waxaan raadinayaa MetaTrader 4. MetaTrader 4 dabcan waa application-ka noocaas ah number 4 dhexda ay kaga qoran tahay MetaTrader 4 forex trading ayaa ku qoran. install baan soo oranayaa. marka install laho isla markiisa automatic ah ayuu wuxuu igu furayaa demo account jeebkiisa ah. balse mar rabo demo account-ku isagu ii furay inaan isticmaalo ee waxaan isku dayi doonaa demo account aniga ii gaara inaan isticmaalo. open ayaan soo oranayaa. sidaan ku sheegay wuxuu furayaa demo account noociisa. balse demo account jeebkiisa ma fiicna maadaama uu $100,000 iyo lacag u dhiganta uu kugu furayo. haddii meeshan geeska sida u soo furno meeshan geeska deemadii uu inoo furay aan ku dhufano waxaad arkaysaa inay tahay MetaTrader 4 Android demo waxa la dhahay inoo furay $100,000 ay ku jiro. logic maaha, aqli gal maaha. $100,000 na forex kuma bilaabi doonto adiga. marka waxaa la rabaa inaad samaysatid demo personal ah oo aad ku bilaabi kartid lacag suurtagal ah oo qof cusub uu suuqa ku bilaabi karo. meeshan ay ku qoran tahay plus ayaan ku soo dhufanaynaa, kadibna waxaynu leenahay open a demo account. option-kan labaad waxaa loogu talagalay inaad real account-ka la gashid. real account-ka waa inaad website-ka tagtid, waa inaad soo furatid. video dhan aan ka duubay baa jira oo YouTube ku jira si free ah aan kaga sheekeynayo si real account loo furto, kadibna login markay kusoo siiyaan logintaas waxa la yiraahdo loola yimaado halkan. okay haddaba anagu imika waxaan u soconaa inaynu demo account furno maadaama muuqaalkan uu demo account ku saabsan yahay. demo account-keena ayaan click soo siisananaa. meeshaas wuxuu ku leeyahay broker-kee ayaad rabtaa inaad deemadiisa suuqa ku barbaratid. demo account waxaa laga wadaa account ay ku jirto lacag aan run ahayn oo la doonayo inaad ku tijaabisid xirfadii aad baratay saad ficil ugu bedeshid. waxaynu raadinaynaa brokerka magaciisa loo yaqaano aynu anagoo dhan isticmaalnay ee la dhaho FX Primus. deemadiisa waxaa loo yaqaanaa Primus Markets Live. soo ma jeedid Primus Markets Practice kan way midkan labaad way ka globalkaas ka dal. Primus Markets Practice ayaan soo dooranaynaa. kadib wuxuu iga rabaa inaan deemadayda magacayga ku qorto, inaan telefoonkayga ku qorto, inaan emailkayga ku qorto sidii wax run ugu eekaato ama sida aad u qabatid wixii midka runka la qaban lahaa dhow kale. maxaan sameyn doonaa meesha name-ka ah waxaan ku qorayaa magacayga. waxaan leenahay hayaan academy ayaa iskala deemada. wuxuu iga rabaa telefoon ka soo qaad inaan Soomaaliya joogo, furaha Soomaaliya ku bilow, kadibna numberka intiisa kale adaa garanaya qor. okay halkan wuxuu iga rabaa emailka ayuu iga rabaa. waxaan qorayaa info@hayanacademy.com emailka hayaan. qaybtan labaad waa account-ka warbixintiisa. tanna waa qofka warbixintiisa,
kana waa akoonka warbixintiisa akoon noocee ayaa doonaysa inaad furatid dabcan muuqaalkana waa kasoo sheekeeyey FX Primus wuxuu leeyahay laba nooc oo akoon ah midkood waxaa loo yaqaanaa variable midka labaadna waxaa loo yaqaanaa ECN waxay ku kala duwan yihiin midna commission ayaa dadka laga qaadaa midna commission lagama qaada spreadkiisa ayaa badan oo variable-ku spread ayuu leeyahay laakiin wax commission ma leh okay spread iyo commission waxay yihiin haddii aadan aqoon please ku laaba buuggeena soo akhri qodobka ama cutubka aan kaga hadlayo waa maxay dulaalku iyo macluumaadka dulaal ku saabsan oo dhan marka ugu horeysa website-keena aad timi wajahada hore meesha ay ku qoran tahay la deg buuggeena la soo deg kadibna isku dayna akhrisid hal mar laba mar saddex mar ku celi markastoo muuqaaladan wax cusub ay kugu dhagaan video waxa ku laabataa buuggii way isku kaa qabanayaan buugga waxa ku jira iyo muuqaaladan waxaan kaga hadlanaa haddaba qaybta waxaan dooranaynaa ECN-ka maadaama ECN-ka waxaa lagu talagalay $500 iyo wixii ka badan variable-na waxaa lagu talagalay $500 iyo wixii ka yar $100 baana ugu badan okay ba ugu yar baan ka wadaa lacagta lagu bilaabi karo real account maadaama midkaani leverage-ku uu aan rabno inaan real u ekeysiino hal ilaa 500 ayaan ku shubanayna leverage-ku waa lacagtaada akoonka ku shubanaysid lacagta kuu ilaalinaysa ama leverage-ka kuu ilaalinaya weeye maaha lacag real oo meel taalo aad la bixi karto isticmaali kartid brokerku wuxuu ku xiriyeen waxa la dhaho pool of liquidity ama bilaayiin dollar oo suuqa taala ayuu ku xiran yahay ama bangiga taala marka boqolkaaga dollar si uu ula trade gareeyo milaayiin dollar oo suuqa taala waa in brokerku uu difaaca ilaanu inta New Zealand tago lacagta New Zealand ma sarifaya ana gurigeyga joogo oo dollar isticmaalaya ba New Zealand iyo Japan kala sarifaya waxa ay fududeynaya waa leverage iyo brokerka platformkiisa gudaha ah ee aan isticmaalaya haddaba hal ilaa 500 ayaa fiican ka dhigay midkan waa lacagta deposit-ka waxaan ka dhiganaynaa 3000 oo ah lacagta ugu yar ee brokerku ina siinayo inta markaa qortid meeshan hoose ay ku qoran tahay create account ayaad click soo siinaysaa waxaad aragtaa in automatically akoonkeena inoo sameysmay haddii aan halkan nimaano waxaad arkaysaa inaynu haysano akoon magaciisa la yiraahdo Hayaan Academy $3,000 ku jira uuna leeyahay brokerka loo yaqaano FX Primus haddaba imika waxaan isku dayaa inaan kula fahamsiiyo waxyaalahan waxay u kala yihiin okay dhowrkan xabo midaan labada falaarood ah midaan kale oo u eeg shamacyadii midaan ah falaart kor u jeeda iyo midaan ah buug u eego kale mid walba iyaga kamid ah fariin ayuu wadaa laga doonayo inaad fahamtid isticmaalkeeda iyo waxa la yiraahdo waxa ay tahay marka la joogo MetaTrader 4kaaga iyo marka la joogo waxa la yiraahdo deemadaada iyo real account-kaaga intaba oo ah MetaTrader 4 dhexdiisa waxa lagu isticmaali lahaa waa hagaag aynu isku dayno marka inaynu waxa la yiraahdo aynu halkan ku bilowno meeshan geeska waxa ku jira lacagihii aynu trading view ku isticmaalanay ee halkan inoogu jiray okay halkan markaynu joognay lacagihii halkan inoogu jiray ee aad arkayseen GBP/USD Soma Euro USD oo kala tan ka dhigno waa maxay waa suuqii aynu falanqeynay Euro USD deena halkan loo joogtay aynu halkan ku falanqeynay ayaa mobilkana kuugu jirta simply waxa la yiraahdo mobilkiina isla iyadii way wax kugu jirta oo Euro USD halkan ka muuqata isla Euro USD ayaa halkan taala okay same thing way marka shaqada aad computerka ku soo qabatid ayaa la rabaa inaad telefoonkana ku dartid marka lacagii oo dhan qayb laga yaabaa inay ka maqan yihiin lacagaha ka maqan hadii aad rabtid ku soo darsatid meeshan ay ku qoran tahay plus soo ma jeedo kore ayaad imaanaysaa marka timaadid mararka qaar kood forex ayuu ku siinayaa marka real account isticmaalaysid waxa laga yaabaa inuu ku siiyo forex exotic ama waxa la yiraahdo forex minors because kuwa waaweyn isaga kugu shubaya marka koowaad forex-kan ku shubo kuwaan oo dhan soo taabo taabtaba way baxaysaa luuqi ay ku biiraysaa soo ma jeed lacagihii iga maqnaa oo dhan waa kuwaan ku soo shubtay hadda marka aan soo laabto fiiri account meesheedii way soo buuxsantay lacagahaygii dhan ayaa igu jira marka midaan geeska ah waxay muujinaysaa lacagaha account-kayga igu jira oo dhan midaan ku xigta waa chart-kii halkan ka muuqda soo ma jeedi candleskii suuqa ayuu ku tusaya waa shumacyadii waxaana arkaysid halkan ka muuqda okay shumacyadan oo kala way shumacyada halkan igu muuqda oo kala way wax halkan iga muuqda oo markaan trade galo ayaa chart-ka ka fiirin kadhaa maadaama aan tagi karin waxa la yiraahdo computerkii oo kale chart-ka halkan ayaa ka fiirin kadhaa sidii ma garanaysaa normalka ahayd oo loo isticmaalay trading view oo kale aad isagana isticmaalsaa balse muhiim ah qodobkaas kan ku xiga waa marka trade furan yahay imika wuxuu ku tusayaa balance-gayga oo ah lacagta igu jirta waxa la yiraahdo meeshayda equity-gaygu waa inta lacagtaas wili aan haysto oo aan khasaarin ama aan waxba ku darsan maadaama cusub yahay free margin-kuna waa margin-ka la siiyay margin-ku waxa weeye leverage-kaaga ku dul saaran lacagtan inta wili baaqiga ku ah qodobkan ku xigana waa history waxba history ma sameyn lacagta lagu shubo waa $300 wilina $300 ba balance ah aynu dhaqdhaqaaq sameeyna marka waxaan rabnaa
inaan euro USD oo kale tusaale ahaan galno aan dhahno meeshaan baan euro USD baan falanqaysanay entry baynu helnay trade baa laga yaabaa inaynu qaadano ficil baa la rabaa in loo bedelo markaad computerka halkaan aad stop loss iyo take profit wax soo dhigatid meeshaan ay imaanaysaa euro USD ayaa tuujinaysaa soo ma jeed kadibna wuxuu ku siinayaa ma new order baa tagaysaa ma chartiyada rabta inaad aragtid ma symbol waxaas aad fiirinaysaa ma advanced view mode baa rabta inaad aragtid waxaynu rabnaa marka new order oo ah trade cusub baan gelaya markaad timaadid intaana option ayaa kuu soo baxaya marka waxa ugu horeeya kuu soo baxay waa maxay ma meesha hadda suuqu maraya ayaa rabta inaad ka geshid market execution kan arks waxa laga wadaa meesha iminku suuqu maraya miyaa rabta inaad ka geshid mise waxa rabta inaad buy limit iyo wax la yiraahdo sell limit ku geshido markuu soo laabto meel heblaayo ku soo laabto miyaa rabta inaad geshid mise waxa rabta inaad buy stop iyo sell stop ku geshido meel heblaayo markuu gaaro isii raacsiin miyaa laga wadaa noocyada kala duwan oo trade-yada waa ku tusi doonaa balse shayga ugu muhiimsan ee la doonayo inaad ku baraarugtid marka halkan la soo gaaro waa kan weeye okay halkan weeye shayga ugu muhiimsan qaybtan oo dhan waa waxa loo yaqaano lot test buuggeena haddii aad soo akhrisay waxaa jira chapter dhan oo aan lot test kaga hadlayno waxaan kaloo kasoo sheekeynay shaxan dhan baan buugga kugu dhigay oo aan kaga sheekeynayno akoon walba lacagta ku jirta lot testkiisa waxaynu kasoo sheekeynay haddii akoonka ay ku jirto $100 in lagaa doonayo inaad 0.01 la gashid okay wax allaale $100 ilaa $199 inta u dhaxaysa 0.01 la gal 0.01 waa lot size ahaan lacag ahaan waxa u dhigantaa 10 cent soma haddii aad la yiraahdo waxa la yiraahdo aad hayst $200 maxaa ka dhiganaysaa 0.02 haddii aad $300 haystid 0.03 haddii aad $700 haystid ka war maxaa ka dhiganaysaa 0.07 okay haddaad $1,000 haystid maxaa ka dhiganaysaa 0.10 baa ka dhiganaysaa okay haddaad $1,300 haystid 0.13 baa ka dhiganaysaa haddaad $1,900 haystid 0.19 baa ka dhiganaysaa cashaan nooc ku jira waxa weeye $100 oo walba 0.01 ugu dar lacagti okay waa qodobka ugu muhiimsan haddii aad $3,000 haystid maxaa ka dhiganaysaa 3.0 no halkaan ma sorry halkaan aad imaanaysaa 3.0 ayaa ka dhiganaysaa 0.3 baan ka wadaa 0.3 ayaa ka dhiganaysa ama 0.30 oo ay u dhigan tahay halkii biib inuu suuqu dhaqaaqi doono 30 waxa la yiraahdo $3 okay 0.10 waxay ka dhigan tahay $1 0.20 waxay ka dhigan tahay $2 0.30 waxay ka dhigan tahay $3 insha Allah waxa akhrin doontaa buuga qaybtiisa marka maadaama aanu $300 haysano qodobka kuwaad kaas weeyaa labada shay ee ka ku xiga ee rabina ku baraarugtid waa labadan weeyaa okay labadan way qodobkan iyo qodobkan meeshan hoosteedu ay casaanka tahay waxaynu uga baahanahay stop loss inaan dhigano meeshan hoosteedu ay cagaarka tahayna waxaynu uga baahanahay take profit inaan dhigano marka stop loss ki take profit dhigto suuq buy iyo sell midku ahaana hoostan hoose ayaan ku dhufanaya ama kanaan ku dhufanaya haduu sell ahaa ama kanaan ku dhufanaya haduu buy ahaa iminka aan isku dayo inaan euro USD inaan aan trade ka samaysano okay aan dhahno tusaale weeyaa let's say trade kan inuu geli lahayn baynu leenahay markuu halkaan marayay halkaan markuu marayay sayladan markuu marayay baan rabnaa inaan galno okay intrigan labaad baad ka soo raacday baynu leenahay intrigan labaad oo sayladan markuu joogay just tusaale una ayaan ka rabnaa okay maxaa soo qabsanaysaa calaamadda suuqa selka loogu galo kadibna hoos baan suuqa u raacayaa sel way soo ma let's take profit cake inuu yahay ilaa halkaas oo suuqu sii soconaya stop loss cake structure kan aan ka sarreysiinaya 13 iyo soo ma maxay ka dhigtaa 20 bb ga dhig 20 iyo 20 baa u socda nambarada isticmaalaya waa numberkan iyo numberkan weeyaan nambarada laga doonayo inaan isticmaalo okay maxaa sameynaya marka euro USD waan joogaa soo maaha nambarada u baahan waa kee waa 1.1 eber 720 iyo 1.1 eber 3 eber eber ayaa waxaan kala gelinayaa labadan meelood kan aan ku hormarayaa oo ah stop loss kaygu muxuu yahay numberka halkaan aan gelinayo stop loss ka waa numberka halka kuugu qoran maxaan leeyahay 1.1 kale eber 720 sama jeed kadib dhinacan kale ayaan imaanayaa oo waxaan ku bixinayaa numberkayga kale oo ahaa take profit kayga oo ahaa 1.1 eber 3 eber eber kadib suuqan sell baan u galnaa soo maaha fursadda sellka ayaan click siinaya dadana trade ayaa ii furmay order is open soo ma jeedin take profit ka ayuu u dhow yahay suuqan waa kana suuqaygu ii furmay calaamadaydii labaad ee tan ahayd soo ma jeedin calaamadaydii labaad ee tan ahayd ayaa waxaa muuqatay inaan iminka ay shaqaynayso waxay ku tusaysaa calaamadda aan trade-yada ku furan okay trade-yada
kuu furan ayay ku tusaa. let's say haddii inaan trade kala raadino kan iska daa mid kale oo waxaan isku daynaa trade kale oo aan kan ahayn baan isku daynaa inaan fiirino. let's see inaan GBP/AUD daan oo kala tagno. okay kadibna waxaan isku daynaa inaan iyadana ku tuso sidii aynu u isticmaali lahayn same thing. okay kasoo qaad in trade-kaani aynu ka helnay fursad buy ah inaynu halkan ka helnay kasoo qaad sayladan maadaama halkan oo dhan uu saylad ka ahaa. okay bartaan inay intrigeynina waa tusaale ah waxa aan u socdo waxa weeye waxaan rabaa inaan ku tuso sida ma trade fork loo isticmaalo iyo haddii aad doonaysid inaad trade kishid isku day inaad istaraatiijiyadeenni soo martid. fursad buy ayaan ku tusay iminkana fursad sell inaan ku tuso ayaan isku dayaya. okay kasoo qaad suuqan inaan raadinayno inuu fursad buy ah ina siiyo oo aynu rabno inaynu kor u raacno oo aynu sayladan hoose ka raacno. okay targetkeena waa maxay? waa 70 bib. stop losskeena waa intee? stop losskeena aynu ka dhigno 35 bib oo kale. okay kadib waxaynu u baahannahay nambaradan inaynu gelino xagee nambaradan inaynu gelino waxa la yiraahdo trade-keeni. halkan ayaan imaanayaa waxaan raadinayaa lacagtan waa lacagtee lacagtu waa GBP/AUD soo ma GBP/AUD ayaan soo qabanaya waxaan soo qabanayaa GBP/AUD ayaan suuqiga ka dhex raadsanaya meeshay rabtaa ku jirto GBP/AUD intaa ka qabanaysa saa u soco waanigaa soo helay soo ma jid waxaan soo helay GBP/AUD click baan soo siinayaa maxaan dhahayaa new order baan dhahayaa qodobka koowaad aan ka taxadaraya waa maxay waa halkan inaan iska fiiriyo. okay maxaan kadib qorayaa stop losska iyo take profitka ayaan qoranayaa. stop losskeena muxuu yahay? waa numberkan hoos ayuu xigaa markan waa maxay? waa 1.7945. take profitkeena waa maxay? take profitkeena waa korkaas waa 1.812. okay kadibna maxaan leeyahay buy baan leeyahay maadaama fursaddan ay tahay fursad buy ah buy ayaan leeyahay. iminka maxaa ii furan? waxaa ii furan laba trade wixii aan kusoo barayay marka ama istaraatiijiyadii aynu kasoo shaqaynaynay ee maanta dhan aan ku celcelinaynay saddexdii istaraatiijiyad aan kusoo baray xaqiijimihii naqshadihii suuqa iyo luuqadii suuqa aan kusoo baray marka aad trade ku heshid mobilka ayaad imaanaysaa sidaan aan hadda kuu tusay ayaa u samaynaysaa. waxaa jira oo ardada qaybtood dhib ku noqota marar badan weliba waxa la yiraahdo trade-yada loo yaqaano bending orders. bending orders waxa weeye hadda waxaynu galnay GBP/AUD baynu galnay saaxiibkaa baa yimi wuxuu yiraahday niyo GBP/AUD waa ku degdegtay anigu sell limit baan ku galayaa oo maxaa ka wada adigu buy baa ku gashay waa khaldan tahay buu ku yiri balse waxaa la rabay inaad ku gashid waxaa la yiraahdo buy stop oo haddii suuqu uu halkan soo dhaafo ayuu safe yahay ayuu aaminsan yahay. muxuu aaminsan yahay? meeshan adoo ka gashay waa ku khaldanayd anigu waxaan rabaa buu ku leeyahay suuqu hadduu halkan soo dhaafo waa inaan buy u galaa marka muxuu rabaa isagu haddii xariijintan kor loo dhaafoba trade-ku ha ii furmo oo iminka meeshan uu marayo kuma kalsooni buu leeyahay maadaama halkan laga celin karo halkan ka walayaa moogta maadaama halkan laga celin karo horey baa looga celiyay sooma mar kalena waa laga celiyay wuxuu isagu marka xariijintiisa dhiganayaa meesha laga celinaya meel ka sarreysa deetana hadduu suuqu kaa soo dhaafo inuu galo ayuu doonayaa. trade-ka noocaas waxaa loo yaqaanaa bending order ama trade la sii ballansaday iminka meeshuu maraya ha iga geline easy ballan ayuu leeyahay marka la sii ballan marka numberka uu ka ballansado waa numberkee waa numberka xariijinta bankiga ay kugu qoran tahay ama basaliga oo 1.8 ayuu rabaa inuu ka sii galo beriga la gaaro. si fiican u fiirsiyaa maxaad u baahan tahay markaas waxaad u baahan tahay inaad sugtid inta suuqu halkan u ka jeexayo oo uu korkaas tagayo. okay maxaad samayn doontaa marka waxaad samayn doontaa inaad soo qabsatid calaamadii buyda kadibna aad halkan dhigatid. awal waxaanu isticmaali jirnay take profit iyo stop loss kaliya soo maaha iminka waxaa kusoo biiraya entry oo suuqi halkaan uu marayaa anna halkaas aan doonaya inaan ka galo buy ayaan doonaya inaan ku galo beriga uu halkaa gaaro. maxaad marka u baahan tahay inaad samaysid? simple waxaa u baahan tahay inaad la soo baxdid trade-kaagii deetana GBP/AUD inaad mar labaad soo samaysid new order soo samaysid. markaan waxaad bedelaysaa meeshay ku qoran tahay market execution oo haddii adigu aad trade ka samaysanaysid waa inaad numberkan haysatid oo uu qorshaha kugu jiro. numberkan waa inuu qorshaha kugu jiro haddii uusan numberkaasi qorshaha kugu jirin waa halis weeye waa inaad numberka haystid. market execution-ka ayaa soo furaysaa suuqan imika waxaynu rabnaa markuu meel heblayo gaaro inaynu galno soo maa waxaan leenahay marka waxaa nooga dhigtaa buy stop nooga dhig baan leenahay. maxaa aragtay inuu igu soo biiray number kale inuu igu soo biiray stop loss-kii iyo take profit hoos bay u degeen dhexdooda number kale oo ay price ku qoran tahay ayaa igu soo biiray. numberka ay price ku qoran tahay waxaa gelinaysaa xariijinta bankiga numberkii ku beegnaa oo wuxuu ahaa 1.8 1.8 okay
kadibna halkan ayaa imaanaysaa stop lossku muxuu ahaa 1.7966 halkan ayaa imaanaysaa take profitkeenu muxuu ahaa 1.8 eber 7 eber hal awal maxay ahayd buy iyo sell ayaa ku dhufanaysa iminka waa maxay waa place waa dig weeye trade kan halka easy dig duca qabe oo bariga uu halka soo gaaro ka hor ha taaban weeye maxaa leedahay place baa leedahay iminka markaad timaadid meeshii ku tusay trade-yada furan waxay noo muuqata GBP AUD oo buy ah Euro USD oo sell ah iyo GBP AUD inoo balansan oo bariga uu halka gaaro ayaan sameyn doonaa waxaan ku soo baray istaraatiijiyada lagu galo suuqa waqtiga dheer ee Elliott Wave loo yaqaan trade-yada qaybtooda waxaan ku yiraahday waxa laga yaabaa inuu biriyo kala furmo aroortii ama waa shaqaysaa subax hore kacday shaqa gali doontaa suuqa analyze gareystay fursadaha heshay fursadaada sii dhigo xasuusno yaa anagu hadafkeenu wax weeye dadka inaan xoreyno I don't care inaan macallimiin la joogto ama aad la joogin I don't care inaan hayaan ku sii jirto ama inaad ku sii jirin waxaan doonayaa inaan xaqiijiyo markaad go'aansatid inaad forex soo gashid waxaan doonayaa inaan xaqiijiyo inaad dhinaca saxda u gashid inaad guul u socotid okay trade-yada marka noocan oo kale maadaama mashquulsan tahay ama arday tahay ama hooyo tahay ciyaalku ag joogaan ama aabba tahay waxa weeye aad mashquul tahay ama jaam kale ku jirtid waa sii balansan kartaa noocan marka trade-ka la balansanayo waa trade la rajaynayo marka uu meel heblaayo soo gaar inaan galno nin kale wuxuu yiraahday niyow idinkoo dhan waa khaldanaydeen trade-ku sidaas ma ahayne waxaa la rabay inaynu halkaan sugno halkaan trade-ku marka uu soo jabsado ayaan rabaa inaan galo waa gartay oo sidee u galaysaa waxaan doonayaa aniga trade-kaygaani inuu halkaan ii soo jabsado iminka meeshan ayaa structure ah ayuu ku yiri aan ka soo qaadno meeshan ayaa structure ah ayuu ku yiri trade-ku marka derbigan ku dhufsado waxay noqonaysaa saylad ay noqonaysaa oo laba jeer hore ayaa laga celiyay meeshan head and shoulder ayaa ka muuqda head and shoulder hadii aadan fahmin muuqaalka waxaan kaga soo hadlay naqshadaha suuqa head and shoulderka double topka double bottomka kulligood halkaas kaga soo hadlay marka wuxuu aaminsan yahay garabkan kale ku beegiisa marka la yimaado suuq inuu hoos soo aadi doono oo wuxuu rabaa bariga suuq uu halkan ku soo laabto ayuu wuxuu doonayaa inuu galo ayuu wuxuu doonayaa inuu fursad sell ah u galo marka muxuu leeyahay halkan ayaan waxaan sii dhiganayaa sell limitkeega markan maxaa weeye marka waxa weeye suuqaani marka uu korkaan yimaado ayuu kala wareegi doonaaye haddii aan maqanahay iminka isii geli trade-kaas ayuu ka rabaa maxaa marka u baahan tahay meesha laga geliya waa maxay waa xariijinta bankiga meesha igu beegan stop loss-kayga kor buu jiraa take profit-kayga hoos buu jiraa simple maxaa samaynaysaa mobilkaagii aad la soo baxaysaa deetana maxaad raadinaysaa GBP AUD baan tusaalaha ku qaadananaa GBP AUD ayaa imaanaysaa new order ayaa leedahay ma market execution ma ku galaysaa maya duca qabe maxaynu ku galaynaa sell limit ayaynu ku galaynaa sell limit waxa weeye suuqaan marka dhinacu hadda u socdo maahee dhinaciisa kale markuu u jeesto ayaan rabaa inaan galo ayaa tiraa price-kaagan maxaa ku qoranaysaa okay price-kaagan waxaa ku qoranaysaa numberkan dhexda ku jira 1.8 112 ah okay perfect iminka maxaa u baahan inaad samaysid waxaa u baahan inaad price-ka soo qabsatid marka ugu horeysa maxaan soo qabsanayaa price-ka ayaan soo qabsanayaa 1.8 112 ayaa noo ah price-ka stop loss-keena muxuu noqonayaa waa 1.8 632 soo ma jeedid take profit-keena muxuu noqonayaa 1.79 ayuu noqonayaa okay maxaa marka haystaa place ayaa haysta simple deetana place ayaa haysta iminka maxaa ujeedaa GBP AUD buy ah Euro USD sell ah GBP AUD sell limit ah iyo GBP AUD buy stop ah haddaba sell stopka iyo buy limitkuna waa labadaan oo dhinacoodii kala wax kala maaha trade-yada marka la balansado macnaha ku jira waa sidaas weeye okay isku day marka intaa cusub tahay in deemadaada aa ula dhaqantid sidii realki haddii aad signal qaadatid waxa dhacda macalinku markuu signal soo dirayo inuu waxa la yiraahdo ama markaynu signal soo dirayno oo aan soo gelinayno channelkeena signalska aan ku soo dirno waxa laga yaabaa sometimes in signalka la soo raaciyo waxa la yiraahdo entry-ga la soo raacinayo macnaheedu ma ahan in suuqaani uu buy stop iyo sell stop yahay haddii buy stop iyo sell stop yahay waa lagu soo sheegi lahaa waxa lagu oran lahaa war waxaana waa buy stop ama waa sell stop baa lagu oran lahaa balse maxaa weeye nuxurka ku jira waxa in lagu sheego trade-ka marka la geliyo meesha aan ka galnay signal walbo anaga aan soo dirno waxaynu soo raacinaa waxa la yiraahdo enter ayaan soo raacinaa waxaan soo dirnaa stop loss iyo take profit korkooda waxaan ku qornaa at baan ku qornaa oo aan ka wadno meeshii
meeshii suuqaan laga galayay. marka haddii uu kaa daaho oo adoo shaqo ku jira ama adoo howlo ku jira oo tareedka waqtigiisa la dhaafo, isku day inaad waxa la yiraahdo marka koowaad aad calaamadsatid maxay inaad calaamadsatid meesha suuqa laga galay. xataa haddii aadan heli karin waxa la yiraahdo computer, mobilka meeshiisaan dhexe imow, meeshaas uma jeeda imow, deetana tareedka laftirkiisa fiiri. okay, in tareedka laftirkiisa fiiri, meeshaan saa u taabo dhexdaan saa u taabanaya moogtahay, meel dhexe saa u taabo, kadibna xariijintaan la soo bax, kadibna sidaan ugu raaraadi meesha la sheegayo. haddii tareedka lasoo diray nambarka yarkaayo madowgaas uma jeedid, ku raaraadi meesha lagu leeyahay waa lasoo diray. mar kale haddaa rabto sidii oo kale u taabo. okay, mar kale sidii oo kale u taabo haddaa rabto inaad xariijin kusoo darso. sidoo kale xariijimihii sida supportiga iyo resistancega lagu soo darsanaya waa tana. xariijinta horizontalka kusoo darso, meelahan meesha rabto dhigo, soo ma jeed meesha lagu yiri marka entry way ku fiirfiiri. hadda xariijinteedii oo kale ayaan soo qabsanaya waa tana, meeshaas ayaan dhigay 1.48 oo kale. mar labaad barta inaad soo qabsatid iyadii oo kale raadi waa tana, horizontal line kala soo qabsatay dhan battery waa kana, asagii waa durkin kartaa marka dhinaca rabta ayaa geyn kartaa. muhiimadu waxa weeye marka tan loogu soo daray meesha ama aan kugu sheegayo ina entryga suuqa haddii wax badan laga tagay oo suuqa entryga wax badan dhaafay, suuqa wuu ku dhaafay sinalka kuwa ku xiga raadso. okay, qodobka ugu muhiimsan ee la doonayo inaad fahamtid dabcan waa midkaas. okay, andano tradekan markii hadduu isfuri waayo maxaa dhacaya? GBP AUD ba waxaa rabtay inaad ku gashisan limit, kadib waxaa ogaatay inaad khaldanayd, waxba mushkilad ma leh, waa tuujinaysaa kadibna delete order baa leedahay, waa iska deleteaysaa trade. okay, sida aan sell limitka kuu tusay oo dhinaceeda kala weeye buy limitku, sida aan buy stop kuu tusay oo dhinaceeda kala weeye sell stop. dabcan markaad hadhow real account soo furatid, meeshan ayaad imaanaysaa, blaska ayaa kusoo dhufanaysaa, waxaa leedahay login to an existing account. halkan ayaa waxaad ku raadinaysaa brokerkaaga magaciisa. tusaale kale Primus Markets Life oo kale ayaa la yiraahdaa brokerkeena magaciisa, Primus Markets Life oo kale weeye. kadibna emailka ay kuu soo direen ayaa waxa ku jira login iyo password. loginka iyo passwordka ayaad gashanaysaa, deetana simple accountkaagii ayaad sidaa ku haysataa. sidii oo kale ayaad stepska dhan soo maraysaa, lacagii baa kusoo darsanaysaa, wixii kaa maqan tradyada halkan aad ka fiirinaysaa, kii kuu furna halkan aad kala soconaysaa. waxa la yiraahdo qodobadan haddaan kusoo gabagabeeyay marka meeshaan ugu sarreysa waxay muujinaysaa balancegeega oo ah suuqan markaan soo geliyay lacagta igu jidhay $300 bixi. tanna imika waxay muujinaysaa equity-guna $300 hadda imisa ayaa lacag ah oo taala, waxa taala $300,000 baan ka wadaa, sorry, 2,997 ayaa taala. oo maxay ka dhigan tahay? waxay ka dhigan tahay in $3 ee halkaas ku jirto oo minus aan ku hayo ama $4. okay, midkan ku xiga waxa waa free margin, waxa weeye marginka wali ii baaqiga ah ee ii fududeyn karin aan trade kale oo badan galo. okay, isaga mid ku sii xiga waa maxay? waa margin level. margin level waa maxay? intee in leeg ayaa marginkayga cunay oo dhammaaday. tanina waa guud ahaan marginka haystay. marka marginkayga inta cuntay, inta ku nool, inta guud haystid iyo waxa la yiraahdo inta trade gadaal kala irtid ay muujinayaan. maxaa ugu muhiimsan marka? always equity-gaaga fiirso. oo videogan midka ku xiga oo dhan waxaynu kaga sheekeynaynaa farqiga u dhaxeeya risk management iyo money management. dadka forex ku wareera 100% waxa ka khaldan waxa weeye waxay dhagta un ka maqleen risk management waxa la jira. risk management-ki dhamaa wuxuu qabaa waxa la yiraahdo numberkaas oo la ilaaliyo. risk management-ku lot size kan oo la ilaaliyo kaliya ma. dad badan baa xukuman risk management-ki la sheegayo inuu yahay lot size kan oo la ilaaliyo. lot size-ku waa hal qayb oo risk management-ki ka mid ah. waxa jira wax dhan oo la dhaho money management oo la doonayo inaad baratid sidii aad u ilaalin lahayd lacagta halkan ku taala. haddii $2,991 anigu aan haysto, stepka koowaad intaadan risk management ka fikirin aad ka fikirayso waxa weeye lacagtan iigu jirta akoonkayga intee in laga khasaarin karaa. muuqaal ku xiga waxaan kaga sheekeyn doonaa marka macluumaad dhammaystiran oo ku saabsan 4 qodob risk management u qaybsanto. waxaan kaloo ka sheekeyn doonaa wax walba oo money management-gu halshan ay ku saabsan tahay. meeshaan marka la marayo dadyowga forex-ka guushooyinka gaaray the holy grail waxa dhaca ay yaqaanaan, waa meesha ugu xasaasisan, waa meesha go'aan ka gaarta wiilal iyo gabdho fariida ah forex-ka fahmay oo lacag badan ka sameyn lahaa oo horumar loo jeedo ka gaari lahaa inay forex-ka iska daayaan sababtoo ah waxaysan fahamsanayn waxa la yiraahdo risk management iyo money management iyo farqiga u dhaxeeya. waxa kale oo muuqaalkaas risk management-ga aynu ku dul cabiri doonaa waxyaalaha la doonayo inaad ka fikirtid ka hor inta aadan wax trade dhex gelin. subaxdii markaa soo kacdid maanta la joogo dad badan adiga daawanaya ka mid tahay, waxa laga yaabaa step koowaad subaxdaada ku bilowdo waxa weeye xagee trade ka raadiya, talo signal ma la soo diray,
channelka aan fiiriyo lama rabo waxaas wax ka horeeya ayaa jira oo la doonayo inaad fahamtid inaad samaysid insha Allah waxaan isku dayi doonaa in marka muuqaaladan dhameysid kuma dhahayo 100% perfect ay ahaanaysaa balse waxaad joogtaa level aad kala garan kartid adiga iyo midka wili wareersan adiga iyo midka wili forage ku wareersan level ay indhahaagu kala saari karaan oo oran kadib oh my god qofka meesha jooga bari baan joogi jiray hadafka ugu weyn waa kaas balse forex cilmigeeda marka lagu baro wili waxa ku sii dhiman practice maanta markaan ku baro anigu sida wax la yiraahdo gaariga loo wado inay gacantaadu fariisato oo safar dheer oo min Muqdisho ilaa Hargeysa lagu aamini karo waxay u baahan tahay inay gacantaadu fariisato inaad dhowr boqol oo saac gaariga waday si aan la lamid marka xirfadana dhan baratid fiidiyoodana dhan aad dhameysatid wili waxa u baahan tahay in lagu mentor gareeyo wili waxa u baahan tahay inaad wax badan khaladid ku celcelisid ha ka baqin khaladka ku celceli ha ka baqin khasaarada laakiin isku day inaad suuqa ku dhex jirtid insha Allah muuqaal ku xig intaan ku kulmi doono dhamaantiin waxaan idin leeyahay salaamu alaykum ورحمة الله تعالى وبركاته.